assalaamu calaykum. Dunidan waxaa ka buuxa albaabo fara badan oo aanay u suuragelin qofna inuu furo. Sidoo kalena dadku ay isweydiinayaan sababta ka dambeysa in albaabadaasi aan la furin qofna aanu ku saqajaamin furitaankeeda. Haddaba waa su'aal muhiim ah oo isweydiin mudan maadaama dadku ay yihiin kuwa jecel inay wax walba ogaadaan. Maanta oon joogno, bini'aadanka waa u suuragal inay furaan albaab kasta oo ay doonayaan. haddana waxaa jira oo aan barnaamijkeena maanta ku soo qaadan doonaa albaabo aan weli la furin oo markaa gudahooda lagu qarinayo siro aad u khatar badan. Haddaba maanta waxaan isla wadaagaynaa afarta albaab ee ugu caansan ee aanay qofna u habboonayn inuu markaasi furo. kan ugu horeeya Taj Mahal. Taj Mahal ayaa ka mid ah dhismayaasha ugu caansan ee dunida, iyadoona Shah Jahan uu dhisay sanadii 1631 si uu ugu sharfo xusuusta geeridii xaaskiisa. Shah Jahan iyo xaaskiisa ayaa waxay isla noolaayeen, sidoo kalena ay lamaano ahaayeen muddo 19 sano ah, waxayna dhimatay markii ay dhalaysay cunugeedii 14aad. Saameyn adag ayay ku yeelatay Shah Jahan geerida ku timid xaaskiisa iyo lamaanihiisii nolosha, arrintaa oo ku keentay sidoo kalena ku sababtay inuu dhiso Taj Mahal. Taj Mahal dhismihiisa waxaa loo baahday 1,000 maroodi iyo 20,000 oo nin oo markaasi ka qayb qaadata dhismaha halkani. Hawsha dhismaha ee Taj Mahal ayaa waxa ay qaadatay 20 sano oo kaamil ah. Sida loo dhiseen gareeyay sidoo kalena loo dhigay Taj Mahal waa arrin aad u qurux badan, sidoo kalena la yaab leh. dhirirka taawarada geesaha ka xiga Taj Mahal ayaa waxa ay gaarayaan 40 mitir. ka fogaanshaha taawarada ama manaaraduhu ay ka fog yihiin Taj Mahalna waa arrin markaasi leh sabab gaar ah. qarnigii 17aad waxaa hoobtay oo dumay dhismayaal fara badan oo dhaadheer. sidaa daraaddeed manaaradaha ayaa laga fogeeyay Taj Mahal si haddii hadhow ay dhibaato dhacdo ama markaa ay taawaradu ama manaaraduhu soo dhacaan aanay dhibaato u soo gaarsiin dhismaha Taj Mahal. inkastoo Taj Mahal uu yahay mid ka mid ah dhismayaasha ugu quruxda badan uguna saameynta badan dunida, haddana waxaa ku qarsoon oo gudihiisa ku jira sirooyin aad u fara badan. waxaa jira guryo iyo qolal fara badan oo ku yaala Taj Mahal oo aanay u suuragelin cidna inay gudaha u gasho. markaad bannaanka xagga ka eegto waxaad dareemaysaa halkan inay ku qarsoon yihiin 2 qol. aragtiyada qaar ayaa oranaya oo ku saabsan qolalka xiran sidoo kalena aan la furin in markaasi ay ka samaysan yihiin maada haddii ay la kulanto oxide kaarboonka isla markiiba burburaysa, lagana yaabo inay qolalkaasi dumaan sidoo kalena ay meesha ka baxaan. waa mid ka mid ah aragtiyada sheegaysa sababta aan loo furi karin qolalka ku yaala Taj Mahal. aragtiyo kale iyo tala soo jeedin kale ayaa waxa ay sheegaysaa in sababka ugu muhiimsan ee qolalkaasi aan loo geli karin, gaar ahaan qolka ra'iisiga ay tahay in xaaska Shah Jahan ay ku duugan tahay halkaasi, sidoo kalena uu ugu talagalay inaanay cidina arkin, sidoo kalena aanay faragashan halka ay ku aasan tahay kuna duugan tahay xaaskiisii uu jeclaa ee markaasi kaga dhimatay dhalidii cunugeedii 14aad. arrinkaas ayaana ah mid loo badan yahay, sidoo kalena dad badan ay ku micneeyaan sababta aan loo geli karin qolalkaasi. taalada Abul Howl ee Giza. dad badan oo jecel inay wax ka ogaadaan waxyaabaha qumuudka iyo qarsoonaanta ku jirto waxa ay garanayaan, sidoo kalena aaday u yaqaanaan taaladan caanka ah ee laga sameeyey barnaamijyo badan oo dokumentari ah. taaladan ayaa sababtay caanka u noqotay waxaa ka mid ah siro fara badan oo ku gadaaman, sidoo kalena culummadu aanay weli u helin wax tafsiir ah. haddaba taaladan markii sare loo eego waxay kor u qaadan tahay 20 mitir, halka ballaceedana lagu sheegay 18 mitir. culummada qaar ee arrimahan ku fiican sidoo kalena ka hadla aahaarta iyo raadadka taariikhda ayaa waxa ay sheegaan in dhismahani uu dhisan yahay muddo gaaraysa 4,500 oo sano. culummada ayaa waxa ay sheegeen in taaladani ay ka dhigan tahay sidoo kalena ay matalayso sheeko xariiro markaasi caan ka ah Gariiga agtooda oo lagu sheegay inay jirtay haweenay markaasi lahayd jirka libaaxa. marka aan oranayno taaladan Abul Howl waxaa ku qarsoon siro fara badan, dhab ahaantii arrintaasi waa mid xaqiiqo ah, sidoo kalena aan ahayn arrin kaftana. dhismaha taaladan ayaa waxa ay qaadatay 3 sano oo kaamil ah,
iyadoo hawshaasi loo kaalmaystay sidoo kalena ay qabanayeen wax ka badan 100 shaqaale ah. taaladani ayaa la sheegay in markii hore qaabka ay ahayd sidoo kalena ay u dhisneed ay ka weyneed sida hadda ay tahay. sidoo kale waxaa la sheegay in dadka dhisay aanay addoommo ahayn sidoo kalena ay ahaayeen kuwa cuna cuntooyinka ugu fiican. noolayaal solan gaar ahaan idaha ayay ahaayeen kuwa cuna sidoo kalena hawshani qabta. siraha la yaab kale ayaa waxa ay ku jiraan sidoo kalena ay ku qarsoon yihiin qaybta hoose ee labada lugood ee hore ee taalada. qalabyada cusub ee la adeegsado ayaa la sheegay inay dahqaadeen in meeshani ay ku jiraan 2 qol oo hoos gunta u sii jira 7 mitir oo markaa ku yaala dhulka hoostiisa. aragtiyo kale ayaa oranaya in 2 qol ee meesha ku qarsoon ay gudahooda ku jiraan qoraallo taariikhi ah oo markaasi ku saabsan noloshii hore ee qadiimka ahayd. sidoo kale aragtiyadu waxa ay sheegayaan in qoraalladu ay dhigayaan jiritaanka qaaradda la sheegay inay qarqoontay ee Atlanta, waxayna taasi ka dhigan tahay in 2 qol gudahooda ay ku jiraan qoraallo sir ah oo aan la ogolayn in bannaanka loo soo saaro. laakiin nasiib xumo aragtiyadaasi waxa ay u baahan yihiin daliil cad iyo markaasi caddayn sugi karta oo lagu kalsoonaan karo. 2 qol ee la sheegayna ilaa maanta waa ay xiran yihiin sababtoo ah maamulka waddanka Masar ma ogola in markaasi dadka baarayaasha ah ay gudaha u galaan 2daasi qol, si kastoo suuragal ahna way ugu diidaan. macbadka Badmahanab Suwami. macbadkani ayaa loo qadariyaa sidoo kalena ah mid ka mid ah macbadyada ugu caansan ee dunida, wuxuuna ku yaalaa magaalada Trivandrum ee waddanka Hindiya. macbadkani kuma caanbixin oo kaliya quruxdiisa iyo qaabka la yaabka leh ee uu dhisangaraysan yahay ama loo nashqadeeyay, laakiinse sababaha caannimadiisa waxaa ka mid ah inay gudihiisa ku yaalaan 6 qol oo markaasi sira sidoo kalena la yaab huwan. qolalkaasi ayaa waxa ay kala yihiin A, B, C, D, E, F. magacyadaas ayay wataan. waa laga yaabaa qolalkani inay wateen magacyo kale, laakiin hadda waxa ay wataan magacyadaasi xarfaha ka kooban sidoo kalena isku xiga ee xarfaha Ingiriisiga. dhab ahaantii qolalkaasi waxaa ku qarsoonaa waxyaabo la yaab leh, sidoo kalena maamulka ayaa waxa uu isku dayay inuu furo qolalkaasi sidoo kalena uu ogaado waxa gudahooda ku jira. qolalkii 6 ahaa 5 ka mid ah ayaa la furay sanadii 2011 waxaana loogu tegay kaydad la yaab leh oo aad u qaali ah. dhagaxyo qaaliya iyo dahab fara badan ayaa loogu tegay halkaasi oo marka la qiimeeyo gaaraya 1 trilyan oo dollarka Mareykanka ah. laakiin ka waran qolkii 6aad maxaa loo furi waayay isaga? waxaa la sheegay in la isku dayay arrintaasi laakiin aanay suuragal ahayn, oo waxa ay sheegayaan sheeko xariirooyinka laga sheego qolkaasi inuu yahay qol lacnadan sidoo kalena aan la furi karin ilaa la helo tacwiido iyo shay markaa lagu furo oo ay adeegsanayaan dadka meesha jooga ama macbadka maamula. laakiin dadka hadda jooga uma suuragal aha inay tacwiidada aqoonsadaan sababtoo ah maba garanayaan, sidaa daraaddeed ayaanay u suuragalayn in albaabka gabi ahaanba la furo. qiso iyo sheeko kale ayaa waxa ay oranaysaa in sodomeeyadii qarnigii tegay ee qolyo tuuga ay isku dayeen inay qolkaasi galaan sidoo kalena ay ka soo qaataan kaydad, laakiinse masas aad u xajmi weyn ayaa isku gooyay qaybta hore ee qolka iyadoona dadkii oo dhan ay ka baxsadeen sidoo kalena aanay cidna u suuragelin inay furto qolkaasi. laakiinse qisada iyo sheekada looma hayo wax sugaya sidoo kalena caddaynaya inay dhab tahay. laakiinse Finodrey oo ka soo shaqeeyay qayb ka mid ah maaliyadda dowladda Hindiya ayaa waxa uu sheegay in qolkaasi la furay dhowr mar sidoo kalena dadku ay booqdeen gudahana ay u galeen 7 mar, wuxuuna sheegay inuu furan yahay ilaa 1990kii ilaa maanta sidoo kalena ay suuragal tahay in gudaha loo galo oo uusan ahayn qol xiran. qabriga Imbradoorkii koobaad. mandiqadii meel ku taala dhexbartamaha waddanka China waxaa halkaasi ku duugan sidoo kalena meydkiisu uu ku jiraa Imbradoorkii koobaad Chen Shi Huang, waxaana la sheegay inuu meeshani ku duugan yahay wax ka badan 2000 sano. Imbradoorkani ayaa waxa uu maamuli jiray mid ka mid ah gobolada waddanka China, kadibna markii uu dhintay aabihii waxaa midoobay waddanka qaybihiisii oo dhan isagoona noqday Imbradoorkii ugu horeeyay ee maamula gabi ahaanba waddanka China. laakiinse Shiinaha waxaa maamulayay wasiirka koobaad ilaa markaasi Chen Shi Huang uu ka gaarayay da'da 22 sano. markii uu da'da gaarayna isaga ayaa xukunka gacanta loo geliyay.
hadafka ugu weyn ee imberadoorka ayaa waxa uu ahaa inuu isku ururiyo sidoo kalena uu soo jamciyo qaybaha kala duwan ee ay u qaybsan tahay waddanka China, isagoona arrintaa ku guulaystay guul weyn oo la taaban karna ka gaaray. laakiin nasiib xumo waxa uu dhintay xilli hore oo da'diisu ma aanay noqon qof sii raaga. sanadii 1974 shaqaale meesha ceelalka qodaya ayaa waxa ay arkeen arrin la yaab leh kadib markii ay dhulka ceelasha ka qodayeen ay ku arkeen taalooyin fara badan oo meesha ku aasan sidoo kalena dhulka hoostiisa ku jira. taalooyinka faraha badan ayaa waxa ay ahaayeen askar sidoo kalena wajiyadoodu ay aad u kala duwanaayeen. taalooyinka ayaa ahaa kuwa si la yaab leh loo sameeyey sidoo kalena loo xardhay qaab la yaab leh, waxayna ku jireen dhulka hoostiisa, waxayna ahaayeen kuwa safan oo nidaamsan. sidoo kalena waxaa lagu qiyaasay in dadka halkani ku jira ama taalooyinkoodu ay markaa meesha yaalaan ay gaarayaan 8,000 oo taalo. laakiin xilliyo dhow oo la doonayay in taalooyinka bannaanka loo soo saaro waxaa la helay oo keliya oo la soo saaray 2,000 oo ka mid a taalooyinkii meesha ku jiray. taalooyinkan oo lagu sameeyay baaritaano fara badan sidoo kalena culummadu ay u koorgaleen ayaa waxaa la sheegay sidoo kalena arrinta lagu micneeyay in magaalo dhan oo kaamila ay markaasi ku aasan tahay dhulka hoostiisa. halkan ayaana ah halka uu ku duugan yahay imberadoorkii ku dhintay da'da hore ee dhalinyaranimada ah isagoo isticmaali jiray maaddo mercury ah. shiinayskii hore ee qadiimka ahaa waxay aaminsanaayeen in maaddada mercuryga ay tahay maaddo markaa ka saacidaysa qofka inuu noqdo mid waara oo gebi ahaan aan dhiman sidoo kalena da'diisa kordhinaysa oo dheeraynaysa. sidaa daraaddeed ayaa la sheegay inay sabab u ahayd xitaa geerida imberadoorkii koowaad oo markaasi si joogta u isticmaali jiray maadadan. culimmadu haddii ay baari lahaayeen qabriyadan faraha badan ee ay ku jiraan taalooyinkan faraha badan waxaa markaasi hor istaagaya webi markaa ay ka buuxdo maadada mercuryga oo meesha ku ag yaala, iyadoona loogu talagala maadadani meesha laga buuxiyey in laga ilaaliyo in dadka markaasi doonaya inay taalooyinka la baxaan ay ka hor istaagto arrintaasi. mercuryga ayaana dhibaato ku samayn karta sidoo kalena aafayn karta dadka iyo deegaankaba. haddaba dowladdu ma horjoogto sidoo kalena uma diidana dadku inay baaritaan sameeyaan, laakiin culimmada ayaa waxa ay sheegeen in maadada awgeed iyo qalabka tiknoolajiyada la haysto aanay suuragal ahayn inay daahqaadaan siro fara badan oo ku saabsan dadkan iyo taalooyinkan faraha badan ee dhulka hoostiisa ku jira. si kastaba ha ahaatee maadadaas ayaa ahayd midii dishay imberadoorkii koowaad. halkan ayuuna ku jiraa meydkiisii iyadoona meesha ay ka buuxaan kaydad aad u fara badan. barnaamijkeennii waxaan soo gaarnay gebagabadiisii waxaanu ku soo qaadanay 4 albaab oo markaasi aanay suuragal ahayn in la furo. haddaba adiga keebaa kuula yaabadnaa? haddii aad ka hesho like saar, haddaad ku cusub tahay kanaalka subscribe dheh, sidoo kale furo gambaleelka si ay kuu soo garaan dhammaan muuqaalada halkan aan soo gelino. وإنه مقال كلو حصة له في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.